daawade haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan riix subscribe taabana gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee macluumaadkeena hela. السلام عليكم أصحاب تميل كستو دنيا كتشوكتان كسو دوادا channel كينا قالك عيارها دنيا قضبات waxaa kamid ah kooxda Liverpool oo sawir fariin xambaarsan ugu dhiidhisay dilkii George Floyd jadwalka iyo waqtiga la ciyaari doono kulamada ugu horeeya horyaalka Serie A oo la shaaciyay wararka kale ee caawaanini haynan waxaa kamid noqon doona Mikel Arteta oo qaaday tilaabada ugu weyneed ee walaaca ka yareen lahayd Arsenal Aubameyang oo heshiis 2 sanadood ah u bandhigtay Virgil van Dijk waxaan xasuustaa in dhimasho aan isku diyaariyay waraqahana saxiixay hantideyda qaybiyay hooyadeena ii duceysay ayuu leeyahay mar kale Virgil van Dijk wararka suuqa kala iibsiga aan idin haynana waxaa kamid ah lama filaan Manchester United oo u dhaqaaqaysa saxiixa Raheem Sterling wargeyska The Independent oo faahfaahin ka bixiyay wararka kale ee suuqa waxaa kamid ah xidiga Willian Real Madrid oo iska qasaarisay fursad ay ku heli karto xidiga garabka duula ee Chelsea Willian qodobadaas iyo qodobo kale aynu ku soo qaadan doonaa hadduu eebaraali ka noqdo kooxda Liverpool oo sawir fariin xambaarsan ugu dhiidhisay dilkii George Floyd kubadda cagta kooxaha ka ciyaara iyo ciyaartoy badan ayaa muujiyeen sida ay ugu xun yihiin sida naxariis darada ah ee loo dilay George Floyd waxaana ay kooxahaasi iyo ciyaartoy qaar direen fariimo ay cadaalad ku dalbanayaan kooxda Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield ku soo dirtay fariin waxaana kooxda inta wareeg ku sameysay jilbaha dhulka ay dhigteen taageero u muujiyeen ololaha loogu magac daray nolosha dadka madow qiimay ay leedahay xidigaha Liverpool ayaa iyagana taageero u muujiyay mudaharaadyada iyadoo ciyaaryahanada walba oo bugiisa bulshada soo dhigay sawir ay kooxda iskaga qaadeen iyaga oo jilbaha dhulka dhigtay isla markaana ku soo qoray wadajir ayaa awood leh waxaa sidoo kale jira ciyaartooyina ka ciyaara horyaalka Jarmalka iyo fanaanado hoosgashi ah ku soo qoray cadaaladda ha helo George Floyd kadib goolal ay dhaliyeen kulamo ay ciyaarayeen dilka sargaal cadaan ah oo ka tirsan booliska Mareykanka uu geystay George Floyd ayaa caro badan dunida ka dhaliyay waxaana muuqaalka dilkani uu sargaalka u adeegsaday jilibkiisa si weyn loogu daawaday daafaha dunida caalamka markaana Virgil van Dijk waxaan xasuustaa in dhimasho aan isku diyaariyay waraqahana si saxiixay hantideydana qaybiyay hooyadeena ii duceysay ayuu leeyahay Virgil van Dijk marna kuma fikirin inuu noqonayo mid ka mid ah difaacyada ugu wanaagsan dunida waxaana kaba sii daran inuu sariirta yaalay oo isku diyaarinayay dhimasho markii ay da'diisu ahayd 20 jir xidiga Liverpool difaaca ugu ciyaara ee Virgil van Dijk ka hor intii aanu sanadkii 2012 ku biirin kooxda Celtic ee Scotland waxa uu yaalay isbitaal si degdeg ah loogula cararay markii uu ku soo booday qabsin kaas oo baaritaano intii lagu jiray la ogaaday in uu mid ka mid ah kaliyihiisu ku jiro infection oo ay tahay in qaliin degdeg ah lagu sameeyo Van Dijk waxa uu arintani murugada leh kaga yaabsaday wareysi uu horaantii sanadkan bixiyay waxaana mar kale ay warbaahintu nasiib u yeelatay in ay weydiiyaan arintaas wargeyska Daily Mail oo u warama ayaa weydiiyay duruufihii adkaa iyo xaaladihii argagaxa lahayd ee uu galay intii aanu dunidu baranin xiligaas oo uu ku dardaarmay sida xataa laga yeelayo hantidiisa uu shaqaystay ee ku jirtay xisaabta bangiga taale Virgil van Dijk oo tababarka ku jira ayaa dareemay xanuun kadibna waa uu miir daboolmay ciyaartooyga iyo shaqaalaha kooxdiisa ayaa si degdeg ah ugu wacay baabuurta gargaarka degdega ah intii la sii wadayna waxaa qadka telefoonka lagu helay hooyadii isagoo oo ka hadlaya arintaas waxa uu Van Dijk yiri wili waxaan xasuustaa aniga oo sariirta cisbitaalka dul jiifa waxa kaliya ee arki jiray waxa ay ahaayeen tubooyinka ku jira gacantayda iyo jirkeyga waa uu burburay waxaana maan sameyn kareynin waqtigaas noocaas ah waa xaaladda ugu daran ee madaxeegu ka guuxaya difaaca reer Netherland waxa kale uu ku sheekeeyay sidii ay hooyadii xaaladda ay ku jirtay iyo qaabkii hantidiisii uu u qaybiyay in haddii uu dhinto loo kala qaato waxa uu yiri nolosheedu halis bay ku jirtay hooyaday ayaa ii duceynaysay waxaanu falanqeynay xaaladaha suurtagalka ah ee imaan karaya waxaanu gaaray heer aan saxiixay waraaqo waxay ahaayeen in haddii aan dhinto qayb ka mid ah lacagtayda ay qaadato hooyaday dabcan qofna maan doonaynin inuu ka hadlo laakiin waxa ay ahayd inaan sidaa sameeyo way ii dhamaan karaysay
ayuu yidhi Virgil van Dijk. wararka kalena waxaa ka mid ah Mikel Arteta oo qaaday tallaabadii ugu weyneed ee walaaca ka yaran lahayd Arsenal. Aubameyang oo heshiis 2 sannadood ah u bandhigay Arsenal ayaa qaaday tallaabo ay ku qancinayso in ay ku sii xoojisto weeraryahanka Pierre-Emerick Aubameyang oo sanadkii ugu dambeeyay ee heshiiska galaya, waxaanay u bandhigtay qandaraas 2 sannadood ah oo uu ku sii joogayo garoonka waqooyiga Emirates ee London. لاعبka reer Gabon ee 3 sannadood u ciyaarayay Arsenal ayaa qandaraaskiisu dhacaya bartamaha sanadkan dambe ee 2021 waxaanu ka tagi doonaa heshiis xor ah haddii aanay inta ka horeysa isla gaarin heshiis cusub oo waqtiga ku kordhinayo ama aanan la iibin. Gunners oo sanad maanka ku haysa qaabkii foosha xumaa ee ugu tagay Aaron Ramsey oo aanan wax lacag ah ku helin markii uu ku biirayay Juventus ayaa lumisay sidoo kale Alexis Sanchez markii uu heshiiska ka harsanaa 6 bilood oo kaliya, iyagoo Manchester United kaga soo bedeshay Henrik Mkhitaryan. Aubameyang oo lagu tilmaamo ciyaartooyga ugu muhiimsan ee Arsenal waqtigan ku sugan waxa uu ku soo biiray sanadkii 2018 bilowgiisii, waxaana uu udub dhexaad u yahay qorshaha tababare Mikel Arteta, iyadoo uu yahay dhaliyaha ugu goolasha badan fasal ciyaareedka iyo midkii horeba, laakiin waxa uu doonayaa inuu ku ciyaaro koox ka qaybgalaysa tartanka dhagaweynaha UEFA Champions League. 30 jirkani oo ah ciyaartooyda labaad ee ugu mushaarka badan Arsenal waxa uu isbuucii qaataa lacag dhan 20 milyan oo geni, waxaana kaliya ka sareeya xidiga Mesut Ozil oo 35 geni oo sterling qaata toddobaadkii. Arsenal ayaa sameysay dhibaatada dhaqaale xumada ee ka dhalatay caabuqa coronavirus oo dunida kala xirxiray, waxa ay wax kasta u sameyn doontaa sidii ay ku soo xijisan lahayd xidiga Emerick Aubameyang, sida uu sheegay wariyaha caanka ah ee wadanka Talyaaniga u dhashay ee Nicolo Sachiri. Arsenal ayaa u bandhigtay weeraryahankeeda Pierre-Emerick Aubameyang 2 sannadood oo heshiis ah oo socon doona ilaa iyo sanadka 2023, kuwaas oo xilli ciyaareed kasta ku qaadan doonta mushaar dhan 11.5 milyan oo geni. wararka kale ee nunihayna waxaa ka mid ah maamulka Serie A ayaa soo saaray jadwalka iyo waqtiyada ay dhici doonaan ciyaarta ugu soo horeysa. Torino ayaa kulanka ugu soo horeeya ee dib loogu furayo ciyaaraha ku martigelin doonta naadiga Parma, waxaana markaas kadib si toos ah u bilaabmi doona hardanka hanashada horyaalka ay kula jiidanayaan labada kooxood ee ugu sareeya, kuwaas oo Juventus oo 1 dhibic ka sareyso, Lazio oo doonaysa in ay soo afjarto guulihii xiriirka ahaa ee All Lady Cup-ka ku qaadanaysay wixii ka dambeeyay 2012. ciyaarta Torino iyo Parma ayaa dhici doonta maalinta Sabtida ah oo ay taariikhdu tahay June 20-keeda, saacaduna ay tahay 11 bar galabnimo. waxaa kale oo dhamaadka isbuucaas ciyaari doona Hellas Verona iyo Cagliari. waxaa sidoo kaleeto isfaraqaadi doona Atlanta iyo Sassuolo. kulanka derbiga ah ayaa ah Inter Milan iyo Sampdoria. waxa ay dhammaan ciyaarahaasi yihiin 4 kulan ee baaqiga ee ka hartay toddobaadkii 25aad ee horyaalka, kuwaas oo loo joojiyay caabuqa corona oo ku soo horeeyay magaalooyinka ay kulamadani ka dhacayeen. ciyaarta ay isha gaarka ah ku hayn doonaan taageerayaasha ee noqon doonta mid go'aamisa kooxda horyaalka hananaysa ee Juventus iyo Lazio ayaa dhici doonta bil kadib maalinta horyaalka dib loo bilaabayo, waxaana Juve ku martigelin doonta Lazio marka ay taariikhdu tahay July 20-keeda oo ku beegan maalin Isniin ah, xilli saacaduna ay tahay 3:45 oo fiidnimo. si kastaba horyaalka Talyaaniga ayaa noqday midkii afraad ee si rasmi ah loogu dhawaaqo kulamada oo dib ugu bilaabanayo, waxaana ka horeeya Premier League iyo Bundesliga oo ciyaarihii shanaad ay kooxuhu isku diyaarinayaan kadib dib u bilaabashadiisa. wararka suuqana lama filaan Manchester United oo u dhaqaaqaysa saxiixa Raheem Sterling. wargeyska The Independent oo faahfaahin ka bixiyay inkastoo kooxaha kubadda cagta ay dhaqaale xumo soo wajahday sababo la xiriira fayraska aafeeyay dunida, haddana Manchester United ayaa ah koox isku diyaarinaysa in ay si weyn ugu dhex muuqato suuqa kala iibsiga xagaagani. markii horeysay maanta waxay ku dhawaaqday in ay kordhinayaan heshiiska amaahda ah ee Odion Ighalo, kaasoo kooxda sii joogaya ilaa iyo bilowga sanadka 2021.
2021 wariye Miguel Delaney ayaa qoray wargeyska The Independent liiska ciyaartoyda ee Manchester United diiradda u saaran oo ay ku jiraan Jordan Sancho, Jack Grealish iyo Joe Rodon. dhanka kale daafaca RB Leipzig Doid Upamecano iyo daafaca Napoli Claudio Koulibaly ayaa iyagana ah daafacyada ay eegayaan. liiskooda waxaa qaybta hoose kaga jira xidiga Wolves Raul Jimenez iyo xidiga West Ham Declan Rice. si kastaba hal magac oo ku jiray warbixinta oo dad badan soo jiitay waa Raheem Sterling. haddaba akhriso sida uu wariye Delaney u sharxay. waxaa xiiso leh in hal magac uu durbaba liiska ka soo galay qaybta muhiimadda lana siinayo maadaama ay eegayaan waaxda wax dhiraan dhirisa waa Raheem Sterling ayuu qoray wariye Delaney. cidna uma aragto ciyaaryahanka inay macquul tahay inuu ku biirayo Manchester United, laakiin dadka qaar ee kooxda jooga ayaa dareensan in hubinti la'aan lala xiriirin doono mustaqbalkiisa Manchester City in ay ku gaafwareegsan tahay, gaar ahaan haddii City laga diido racfaanka ay ka qaateen koobka dhagaweynaha UEFA Champions League. haddii aan si kaleeto loo dhigo, haddii Sterling uu diyaar soo noqdo, United waxa ay u dhaqaaqi doontaa saxiixiisa. haddii taageerayaasha Liverpool ay ku naceen Sterling inuu ka doortay City, bal qiyaas haddii uu City ka tago kuna biiro United. dabcan heshiiska uma muuqda mid dhici kara waqti xaadirkan, laakiin mustaqbalkiisa ciyaartoyda City waxay ku xirnaan doontaa go'aanka maxkamadda sare ee xayiraadda ka saaran tartamada UEFA. racfaanka City ay ka qaadatay ganaaxa UEFA waxaa la dhageysan doonaa 8 ilaa 10 bishan June, iyadoo go'aan ka soo baxa uu saameyn karayo mustaqbalka Sterling iyo xidigaha kale. wararka kale ayaa sheegaya in Manchester United ay weli u furan tahay in heshiis ay Juventus ku doonayso Paul Lopez Pogba lagu soo daro Adrian Rabiot. wararka kale ee suuqana waxaa ka mid ah Chelsea ayaa dareenkeeda u jiidanaysa weeraryahanka RB Leipzig ee Timo Werner oo 24 sano jir ah. haddii uu laacibka reer Germany kaga dhabeeyo damiciisa ah in uu u dhaqaaqo Ingiriiska, macalinka kooxda Chelsea Frank Lampard ayaa indha-indhayn ku haya xidiga Timo Werner iyo xidiga Borussia ee dahabiga ah ee Sancho. macalinka ayaa doonaya safar ciyaareedkiisa sanadka dambe inuu ku xoojiyo labadaas xidig Timo Werner iyo xidiga dahabiga ah ee Sancho. Borussia ayaa ka cabsi qabta in Sancho uu kaga hayaamo garoonka Borussia. wararka kale waxaa ka mid ah Arsenal qadkeedii dhexe ee Lucas Torreira ayaa sheegay inuu ku riyoonayo inuu mar u ciyaaro Boca Juniors ka hor inta uusan howlgab noqonin xilli hubanti la'aan mustaqbalkiisu ka taagan tahay. wargeyska Focus Sports Argentina ka soo baxa ayaa daalacay Chelsea oo aad moodo in bartilmaameedyadeedu u sii cad yihiin, doorkana ay sidoo kale hogaanka u hayso saxiixa Federico Bernardeschi oo Juventus ka tirsan, iyagoo laga gacan sareeyo kooxo badan oo waaweyn. wargeyska Gazzetta dello Sport ayaa qoray sidoo kale wararka kale ee Arsenal waxaa ka mid ah xidiga xulka qaranka France ee u dhashay Arsenal u ciyaara Alexander Lacazette oo 29 sano jir ah ayaa wax xiiso u qaban inuu ku biiro kooxda Inter Milan marka laga yimaado wararka lala xiriirinayo inuu London ka dhaqaaqayo garoonka Emirates Stadium ee Arsenal. wararka suuqa kala iibsiga wargeysyada ayaanu ku guda jirnaaye. Chelsea ayaa aad ugu sii dhawaanaysa in ay heshiis buuxda la meel dhigto Philippe Coutinho oo la sheegay in uu Barcelona ku iibinayso 70 milyan oo pound. markaana xidiga 6 jeer ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or Lionel Messi waxa uu sii joogi doonaa Barcelona xilli ciyaareedka dambe kadib markii uu dhacayo heshiiskiisa oo uu ogolaanayo inuu si xor ah ugu tagi karo kooxdaasi xagaagan. markaana wargeysyada waxyaalaha ay qoreen Real Madrid cadcadka waxa ay iska diideen fursad ay kula saxiixan lahayd garabka weeraryahanka Chelsea ee Willian oo 31 sano jir oo xor ay ku qaadan lahayd haddii xidiga heerka caalami ee reer Brazil ayuu xagaagan ku eg yahay qandaraaskiisa uu ku joogay Stamford Bridge. waxaa qoraysa Daily Mirror. iyadoo horyaalada qaaradda Yurub ay bilaaban doonaan isbuucan soo aadan ayaa saakay waxaa laga dareemayay horyaalka La Liga dardar weyn, iyadoo kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ay bilaabeen in ay almiiteeyaan kooxahoodana ay dib u dhis ku sameeyaan kadib horyaalka La Liga oo bilaaban doona isbuucan ugu soo aadan. markaan haddii aan dib ugu laabano aan fiirino natiijooyinkii kulamadii ka harsanaa horyaalka Jarmalka waxaa ciyaaray Hertha BSC iyo Augsburg
waxa ay guusha ku raacday Hertha PSV 2 gool, Mainz 0-5 iyo Hoffenheim ayaa isfooda saaray. Waxaa Hoffenheim 1-0 ay ku tuntay Mainz 0-5. Schalke iyo Werder Bremen oo wada ciyaaray 1-0 ayay ku dhamaatay. Werder Bremen ayaa guusha ku raacday. Wolfsburg iyo kooxda Eintracht Frankfurt ayaa isfooda saaray, waxaana guusha ay ku raacday 2-1 Eintracht Frankfurt. Xawaa meel kastoo dunida aad ka joogtaan, anigoo Cabdirashiid Rashka waxaan ilaahay sidaa iyo nabadgelyo kulan dambe oo xiiso leh.